daawadayaasha ayaan dhinaca khadadka telefoonada fursad u siinaynaa balse ay barnaamijka nogala qayb qaataan intaanan qaybaha kale ee barnaamijka u gudbin soo dhawo walaale magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso Halo. ha walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso Waa Xaliimo Ismaaciil Gaarisa. gaarisaad ku sugan tahay Xaliimo soo dhawo bal ka waran reer Gaarsi iyo COVID-19 ama corona Wallaahi alxamdulillah caafimaadku way si fiican yihiin waa okay. haye Corona viruska laga baqayo dadku waxay leeyihiin waa kulaylku nala soo gaari lahayd. mid kamid ah waxyaabaha aadka looga hadlayay ka dhawaajisay durbo waxay tiri coronavirus kuleelku nala soo gaari lahayd horta kuleemay waa fikrad aad u khaldan weeyaan sababtoo haddii aad fiirisid wadanka Sacuudiga amin waa wadan ka sii kulul Gaarsi iyo dhulkaas laakiin haddana maaragtay waxay qasab noqotay in maaragtay xitaa xaramkii la xiro shalay bay ahayd dawladda Sacuudiga markii ay ku dhawaaqday 24 saacadood oo bandoo Makka iyo Madiina waayahay daawado kale ayaa khadka telefoonka ku jira aan siino bal isagana daawadahan soo dhawo walaale magacaaga halkan nagala soo xiriirayso waa ka xumahay daawadahaasna waxaad moodaa khadka telefoonka ayaa ka heliyay mar kale ayaad soo wici kartaa saaxiib adiga iyo daawadayaasha kale taba dhamaantiin saaxiib yaal waxaan idin leenahay subax wanaagsan oo wacan dhanka Sacuudiga waxa la yiri markaan fiirino dhakhaatiirta dhowr qof ayaan siiyo daawadahan soo dhawo walaal magacaaga halka nagala soo xiriirayso wa alaykum salaam wa rahmatullah عفوا مال بارينا وعي waayahay uu mahadsan yahay daawadahaasi daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa markay nala soo xiriirayaan waxaan aragtidooda ku aadan halka ay ku sugan yihiin iyo COVID-19 iyo sida meelahaasi kala duwan ama goobahaas xanuunka looga arko nala wadaag adigoo mahadsan goobta aad ku sugan tahay ama TV-ga naga daawanaysan iska dami markaad nala soo xiriirayso waa mahadsantihiin soo dhawo walaal magacaaga halka nagala soo xiriirayso الو السلام عليكم wa alaykum salaam wa rahmatullah وقاسم حسين وكذا واهي النطرسك intaad ku sugan tahay walaale وانا عم بسوقنا ريفت فالي Rift Valley soo dhawo walaale bal ka waran halka aad ku sugan tahay dadka shacabka ku nool iyo sida looga taxadarayo ama looga cudurkan looga digtoon yahay ama looga fahmayba in khatarta cudurkan فطرت عذر كنت ميل والبا واي ساميسي لكن لما الحريقه كيانك و مدات في رسيد ارما اي كنت لنا ين هول وديان عافمات سيدي سوشيال ديستانسين يدك لي يقول شو كسب بحين dadka waxa soo balaysa inay kunto ay walaayada dadna soo balaysa bal sawir naga sii sida hadda meesha aad joogto oo kale maalintii ama habeenkii oo kale xaalku u yahay habeenkii dadka way guriyashooda way ku laabtaan dibsaas si weyn kuma jiro laakiin habeenkii waxa maalintii waxa arkaysaa markaas u baxday meelaha suuqaya iyo meelaha dadka lagu gato iyo dukaamada iyo dadka inay si caadi ay iska socdaan siiba Soomaalida halka meesha joogta camal inay waxaas ku baraarugsanaan soo malaysa sidii hadda gabadha gaaraysa ka soo wacaysi oo leeyihiin kulay dadkiisa meel soo gaari way shalayna waa aska waraysa dadka 29 ka ruknay nin Soomaali inuu ku diro yaa loo malaynaya walaal Rift Valley xaga ka joogtaa Rift Valley elgeyo maragta bal waxaad inaga warantaa muuqaalka RTN TV sidee u aragtaan muuqaal RTN TV iyo sidaad u heshaan ka waran RTN TV أنا زايد بنغفرنا سيدا سيبا عبد أحمد ولا كيشينا صلح والبوان بيستا برنامج هلو هوي برنامج هورارسن برنامج متكامسن ساعة صوبل كنت والله على RTN زايد بغفر أحسن ولي بغفرتي ما كان أنا زايد بغفر أحسن ولي بغفرتي برنامج قلنا زايد ولوسي سعود أنا قاسة نهان ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed oo ku dhageysanayo ku saabsan cudurkan coronavirus maxaa u soo jeedin lahayd si watan dadka ku sugan Gaarisa Wajeer iyo Mandera Gaarisa Wajeer oo dadka ku sugan waxaan u soo jeedin lahayd dadka inay horta waa musiibo Allah subhanahu wa ta'ala xaqiiqi imaatay haasi ahaatee waxay dhahan bi intay ku soo gaarin yaa iska moosa Soomaali waxa kale kuma maadito maxay tirada ay tuuri koolay cudurka hadas ku soo galay daawo iyo dhaqtar waxa ku galay intaas ku soo gaarin adoo ka soo jignaada ya muhiim
aad baad mahadsantahay walaal waa kaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga adaa mudan tahay waayahay daawadahaasi waa uu mahadsan yahay elgeyo marakwed ku sugan yahay Rift Valley ayuu joogaa waxaad moodaa horta runtii haddii aad fiirisid qofka shakhsiga wuu bedeli karaa waxyaabo badan hadda waxaa jirtaa gabar ama haween baa jirtay oo maalin dhaweed daraad bay ahayd oo sawirkeeda lagu soo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. walaal magacaa xageedna ku sugan tahay RTM بربنا كغيب قاتو. wala RTM بانكوجرا. xageed joogtaa adigu magacaa جالس بنجوكا محمد خضر باليدها. maxamed khadar bal ka waran coronavirus horta ma aaminsan tahay inuu jiro كورونا فيروس وان آمن سنة هاي إنه جرو. إنت استو أنه أن هاي ضد إسلام dadka gaaladana inta badan ay ku celceliyaan in gacmaha la dhaqdo anaguna de shanta waqti aan tukano waxaan aaminsanahay dadka islaamka haday isku xiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmahana dhaqdaan gurigoodana ku ekaadaan waxaan aaminsanahay inay ka badbaadi doonaan insha Allah marka saas baan leeyahay adigu marka khadar waxaad naga warantaa bal social distancing dadka bal ka waran gaarisa arintaas dadku miyay u hoggaansan yihiin in maaragtay waxoogaa la kala fogaado niyo horta gaaris waa dad iska maxaa la dhihi jiray si fiican weli ooga dhaadhicin arrintan in la kala fogaado ama la isku caad arkaysaa gaaris dhexdeeda adigoo joogo oo boodha saaran oo hal ruux ku wado waxaa arkaysaa qayb kale oo 3 iyo 4 ku saaran tahay markaad istaajiso oo la hadasho daawar waxaan sax waxaad raadinayso wax ka weyn baa ku qabsan karo iska daa marka adigu waa wacyigelintii waan wadnaa marka adna gormaa kugu dambaysa qof aad gacanta ku salaantid anigu maalintii igu dhahay first case baa laga helay wadankii ugu horeeyay China ayaa igu dambaysay qof aan gacanta ku salaamo gurigaygaan galaa waan ka soo baxaa shaqadayda imaadaa waan ka laabtaa cidna uma dhawaado cidna ma taqaanay hal bodo ku aaminsanayna waan raacaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaal waad mahadsan tahay walaal waa khadar uu mahadsan yahay waxaad moodaa aragti ka duwan inkastoo markii koowaad hadalka inta badan la hadal hayo anagu dad islaama baan nahay hawsha iyadu waxa weeye waan dad tukada oo waxa ayaan nahay laakiin haddana waxaad moodaa inuu ka aragti duwan yahay dad badan sida uu arintu sheegay marka horta sida hadda maxamed khadar hadalka uu dhigaayo uu leeyahay anigu ma aragtay kolay khadka miyaa lagu jiraa haddii lagu jirana walaal soo dhow magacaagii halkan nagala soo xiriirayso RTN baad si toos ugu jirtaa walaal soo dhow sultan xamud jidka isku xiro Mombasa iyo Nairobi coronavirus ka waran bal may laakiin adigu ma aaminsan tahay inuu jiro marka kolay dawladda talaabo badan ayay soo bixisay dhaqaatiirta waxay leeyihiin dadka ha kala fogaadaan yaa gacanta la isku salaamin gacan dhaqashada ha la badsado adigu iska waran bal anaga مثلا dadka muslimiinahay waa deganahay waa badanahay Soomaalida muslimka ma joogaan waa badanahay dad muslimiinahay dadka مثلا haweenkina bandow waa meesha marka dadka Soomaalida kale ku dhageysanayo oo daafaha adduunkiisa joogo maxaad kula talin lahayd maadaama uu adigu ka dhaadhacsan yahay cudurkan inuu jiro askii dadka muslimka oo Soomaalida waxaa ugu baruuriyaa askii ilaaliyaan inuu cudurkaas oo jiro oo gaal iyo muslim oo dilay aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaal dabcan daawadayaal Elgeyo Marakwet Garissa Sultan Hamud the message is the same cudurkan hala iska ilaaliyo iyo wax alaale wixii dawladda ama maaragtay laamaha caafimaadka ama warbaahinta sida RTN camal in dawada kale aan siino fursad si fiican Hello RTN soo dhow walaal magacaagii halka nagala soo xiriirayso soo dhow walaal magacaagii halka nagala soo xiriirayso halkaad ku sugan tahay walaal Nairobi Hillingam baa ku sugan tahay haye soo dhow
bal fayza horta waxoogaa codkaaga kor u yara qaad bal ka waran coronavirus. magaalada dadka ku jira alxamdulilah waa ilaaha naga qabto. Okay, laakiin adigu tallaabooyinka dowladda ama laamaha caafimaadka ay ku dhawaaqeen sida social distancing, gacmaha la dhaqanayo, maaragtay dadka gacanta lagu salaamayo oo la iska joojiyo, adigu ma u hoggaansan tahay shakhsi ahaan? annaga maxaa jira gacmaha waa iska dhaqnaa korobsi badan gashanaa markaan soo aadayna camal qof markuu qufo camal waa ka ararnaa daatuuda iyo taksiga markaa galayna camal ubarka naga furaanaa ninka ma galno. Okay, marka waxaan ku weydiinaa dhaqaale ahaan cudurkan siduu kuu saameeyey dhaqaale ahaan maadaama maaragtay dadka intooda badan hadeertan guryahooda ku sugan yihiin? wallahi meeshan horta waa hadda sida hadda ay magaalada ku socoto hadii ku socoto waa dad badan baa shaqani doono. culays badan baa ka soo socda.